daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka qodanaha xaqiiqda wararka caalamka qodobadan soo qaadan doono hadii barnaamijku ka noqdo waa kuwii ugu dambeeyay wararka caalamka kuwada ugu xiisaha badan runtii barnaamijkeena maanta waa ka duwan yahay kuwii hore markana waxaan ku bilaabayaa baarlamaanka Taiwan oo ku dhawaaqay dib u eegis degdeg ah in miisaaniyadda dhinaca difaaca xilli markaasi uu ku soo wajahan yahay dagaalka bariga dhexe saameynta ka dhalan karta ayayna waqtigan u diyaar garoobayaan in baarlamaanku ay si adag uga hadlaan miisaaniyadda difaaca cirka dhul iyo waliba intuba waxa sidoo kale isla eegi doonaa wax ka ogow sheekada Turkiga xogaha qarsoon ee markaasi soo shacbaxay xiriirka hoose Turkiga iyo waliba sidoo kale dagaalka Iran iyo Mareykanka halka isaguna ugu jiro hadaba wararka hoose aan helina ayaa sheegaya in qorshaha Turkiga uu arrimo badan ay ku hoos duugayeen qubana ayaan ku qaadaligi doona waxa sidoo kale isla eegi doonaa madaawatay walwalka soo fud saaray Netanyahu ama ra'iisul Israa'iil Benjamin Netanyahu xilli uu xaalka ku adag yahay hadaba saaxiibkiisa Trump iyo waliba sidoo kale xulafo badan oo si weyn isugu haleynayay ayaa u muuqata waqtigan in garabkiisa ka sii bixi doonaan Ukraine waxa markaas la burburiyay hay'ad muhiim u ahayd walibana si adag hadda looga shaleynay xilligii burburinteeda kadib talaabada tani waxa ay markaas iyana ay u saameynayda dagaalka kala dhexeeya Ukraine iyo waliba Ruushka u muuqda isagana inuu mar kale dib u soo laba kacleen doono waxaan sidoo kale eegi doonaa waa sida xaalka caafimaadka amiirka Imaaraadka Carabta Mohammed bin Said oo inta badan warbaahinadu siyaabo kala duwan uga hadlayaan qodobadaas waliba waxay nagu soo kordhayaan saaxiibayaal ee ku qaadaliga doona barnaamijkeena qodobada xaqiiqda wararka caalamka nooc imaamada channelka subscribe to noosare saaxiibada hore noo joogano noo like gareey oo share gareey meel dheer nala gaarsiiya like tana saaxiibo far badan inta tusaysa haynaga karin maasanidin soo dhaw saaxiibayaal baarlamaanka Taiwan ayaa ku dhawaaqay dib u eegis degdeg ah miisaaniyadda dhinaca difaaca xilli uu markaasi ku soo wajahan yahay dagaalka bariga dhexe baarlamaanka Taiwan ayaa mudnaanta siin doona yiri dib u eegista miisaaniyadda gaarka ee difaaca ka dhanka waa markaasi gaaraysa ku dhawaad 40 bilyan oo marka shaqada oo dib markaas u bilaabato dib ay u fasixi doonaan usbuucan dheer ee sanadka cusub ee dayaxa ayuuna markaas ku sheegay afayeenka baarlamaanka isniintii kadib walaac markaas ka dhashay dib u dhac laga cabsi qabo in markaas ku yimaado sharci dejiyaasha Mareykanka madaxweynaha Taiwan Lia iyo waliba sidoo kale ayaana sanadkii ka horeeyay soo jeediyay qarashka dheeraadka ah ee difaaca si markaas loogu diyaar garoobo Shiinaha oo waqtigan u muuqato in xiisadda Taiwan iyo Shiinaha inay cirka isku soo shareeri karto hadaba madaxweynaha Taiwan ayaa si adag uga hadlay oo tilmaamay in Shiinuhu si kastaba hadii weerar ugu soo qaado iska difaaci doono waana sababaha ugu waaweyn hadda ay qorayaan warbaahinadooda in markaas miisaaniyadda la xoojiyo walibana difaaca iska dhisaan taasi oo lagu laaleynayo ama markaas lagu xindaabayo in waqtigan ay si adag isaga difaaci doonaan inkastoo mucaaradka ay laakiin dhinaca kale mucaaradka oo haysta aqlabiyada baarlamaanka ayaa diidaya in markaas dib u eegistani soo jeedinteeda ama bedelkeedaba ay wax ku hormariyaan soo jeedino kala oo ka jaban kuwaas oo keeni kara ayaa lagu tilmaamay in talaabo ay u qaadaan hadaba Mareykanku maxay tahay hubka waqtigan uu isagana u diyaarinaya in markaas Taiwan uu soo gaarsin karo iyadoo aan arkaynay Shiinuhu iyo waliba sidoo kale xiriirka qotada dheer ee kala dhaxeeya u muuqatay muddooyinkii ugu dambeeyay in si adag markaas uu xumaaday iyadoo aad u xoogan oo walibana saameynteeda leh taasi oo lagu tilmaamayo waqtigan in ay ku abuureyso mid kale oo xiisad kale oo dagaaleed xilli la baahiyay wada hadallo isaga iyo waliba kan Mareykanka ama Donald Trump ay ku wada lahaayeen ajendayaasha qaar ay isku fahmi kari waayeen walibana saameyn culus ka dhalatay ayaa la sheegay waqtigan in xaaladdu ninku ay ku adag tahay oo walibana ay u muuqato in gebi ahaanba isagana xiisadda dagaalka bariga dhexe qayb lixaad uu ka noqon doono hadii ee talaabada tani ay u muuqato isagana dhankiisa ka imaanayso uu qaado waxa la warinayaa ama ay qorayaan jaraa'idadu in ay markaas xaaladdu ay si cuslaan karto walibana ay abuurmi karto xiisad kale culaadeed oo bariga dhexe ka qarxado oo walibana ay soo gaarto qaybaha kale ee dalalka Yurubiyaanka iyo waliba sidoo kale Afrikaanta xitaa inta badan ay ku darayaan ma muuqato talaabo kale u furan Netanyahu ilaa uu dib ugu laabto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo waliba heshiiska ama talaabooyinka uu kala hadlayay mar kale uu kala fariisto waxaan ka ahayn inkastoo uu gebi ahaanba laga diiday oo u muuqato in safarkiisii hore oo ku gaaray halkaasi waxba kama jiraan laga soo qaaday walow hadda la tilmaamayo talaabadiisa ku aadan inay yana markaasi
ka dhalan karto marxalad kale waliba cawaaqib xumadeeda leh iyadoo inta badanna markaasi la xusayo ama maqaalada jaraa'idada lagu daabaco ay ku tilmaamayaan in Netanyahu hadda ay xaaladiisu ay tahay mid aad u cakiran walibana cabsi xoogan ay soo fosaartay sababtoo dunida oo dhani ayuu isku diray oo walibana maanta dal heshiis la ahaba aad ayuu u yar yahay dhinaca kale Ukraine waxa markaasi la burburiyay hay'ad muhiim u ahayd oo ay sheegeen in geebihama markaasi ay burburinayaan qaybta Alpha ee hay'adda amniga ee qaranka ee Ukraine ayaana markaasi burburisay baleeri kala bar nidaamyada difaaca cirka ee muhiim ku ahaa ee Banastir ee Ruushka sida markaasi uu ku dhawaaqay 14 Febraayo. Banastir waa mid ka mid ah baleeri nidaamyada casriga ah ee difaaca ee cirka Ruushka qiimaha ee nidaamkani waxa uu markaasi u dhaxeeyaa 15 bilyan ilaa 20 bilyan oo dollarka Mareykan nidaamka gantaalada difaaca cirka ayaana markaasi waxa ugu taraya ka hortagga diyaaradaha fogfog ee Ukraine waxaana markaasi lagu yiri bayaanka burburinta nidaamka kani waxay markaasi leedahay yool istiraatiijiyadeed oo Ruushku uu noqon karo mid